السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا walaashin Sacdiya Xasan janalkaan naga daawanaysaan waa Ajmal Janal. Asxaabta janalkayga ku xiran horta soo dhawaada. Inta hore ugu xirneed inta hadda muuqaalkeena ugu cusub yahay waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada. Waxaan ugu talagalay clipkan yar adiga 2 daqiiqo camal waa inaan idinkugu mahad celiyo muuqaalka dib aad ka arkaysaan macnaha sida title-ka aad ku aragteen muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaalada aan diyaariyay jimcihii intaysan bahashan la waxaysmin ka hor sida aad ila socotaan alxamdulillah horta wallahi haddaan isku dayo inaan idin mahad celiyo ma idinkugu mahad celinaya sida aad mudan tihiin waayo waa mahadsan tahay bes wax ka badan aad u qalantaan alxamdulillah ducada aad baad igu niyad qaboojiseen ilaahina ducadiina way aqbalay waa kaas waa fiicanahay xaaladaada ka soo warmaa dhahdeen alxamdulillah sidoo kale waxaad igula taliseen inaan jekin maro oo aan isbaaro maantaan tagay iskaana isi soo saaray jawaabti marka arbacada ay nagu dhaheen insha Allah waan ogaanaynaa marka arbacada waxaan rajeynayaa inaan sida hore ka fiicanahay dawooyina hadda la ii soo qoro oo aan qaatay alxamdulillah sida hore aad baan uga fiicanahay sidoo kaleeto walaaltinimada ku saleysan lillaahida ah waxay muujinaysaa maxabada ka dhaxayso dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah adinkoon i aqoonin inaad heerka ay jeclaataan heerka ay duceysaan heerka ay la tamanisaan wallahi alxamdulillah ilaah baan ku mahadiyay adinkana aad baad u mahadsantihiin shukran lakum dadku wax walba way dhaxmartaa laakiin waxaa wax walba ka qaalisan niyad samida iyo niyadda saafida ah ee aan idinka helay anigana ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu thabaat igu sameeyo ilaahay igu sugo wadada aan ku taaganahay waayo nabiga lagu yiri innaka laa tahdii man ahbabta qofka jeceshahay ma hanuunin kartid walaakin allah yahdi man yashaa muuqaalka intuu nooga bilaabanaya waan isla arkaynaa meesha ay tahay iyo waxay caan ku tahay meeshan hadda aan marayno qoob dooro waaye waa garoonka ama stadiumka camal garoon ah ee weyn ee lagu ciyaaro jidkii waxaan ku soconaa liido oo toos u tagayay insha Allah waxaan sii tagi doonaa iskoolska ama iskoolska Marina waxaan hadda muuqaalka ka soo bilaawno oo aan ka soo leexanay iskoolska ama jidka Jeerawac Buudan loo yaqaano jidkani wuxuu toos u tagaa liido maasha Allah tabaarakallah dabaqa halkaa ka muuqdo ee quruxda badan waxa waaye dabaqii Cali Mahdi ee 10 biyaan aha marka hadda kulay kaamirada aad bay uga fogtahay Allah u naxariisto kaamirada aad bay uga fogtahay oo waxa waaye aad buu qurux badan yahay si qurux badan loo dhisay alxamdulillah jidkan waxaad aragtaan inuu yahay two way laakiin gawaaridan dekada ka soo baxda meeshaan lagu xanibaa inta laga gaarayo maxaa la yiraahdaa maalinta jimcaha la fasaxa ama khamiista inta kale meeshaan ku xaniban yihiin laana wadooyinkii waa isku xirmaya habeenaa la fasaxaa habeenka khamiista inuu yahay baan jeclahay laana wadooyinka cariiri bay noqonayaan gawaaridan waqti dheer bay qaadanaysaa inay socdaan jidka hore uu naga xiran yahay oo dhagaxa ku xiran bajaaj baa ka gudbi kara anagana hadda gaari yara saaranahay waxaan u soo leexanay xaafadan waxaa la yiraahdaa xaafada Wajeer ee degmada Kaaraan maasha Allah tabaaraka raxmaan waxaa aragnaa xaafadani qashinkeeda inuu yar yahay oo qashin badan aynan lahayn baca ma aragno sidoo kale waxaa kale u jeedaan inaysan lahayn wadooyin laamiye ah ee baxbaxsan laakiin wadooyinka carakaawada ah ee asalka ah inay leedahay bacaadkeedu saaid ma aha oo waad aragtaan xaafadaha inta badan dhismo ayaa ku socda oo way horumarsan yihiin xaafada Wajeer ee degmada Kaaraan maasha Allah xaafad qurux badan nadaafadeeduna xoogaa ay normal ama maasha Allah ay tahay waa xaafadaha qaar markii loo fiiriyo laanahu xaafada waxaa la qiimeeyaa ama aniga aan hadda aad u fiiriyaa oon u daneeyaa waxay tahay nadaafada iyo dadaalka dadka ka muuqda meesha degan
maasha allah waxaan kusoo dhacnay laamiga weynaa dhacnay wadadii Mariina sartaan hadda aad u jeedaan maxaa la dhahaa aan idinkugu qabanayay waa sarta Mariino ee caanka ay ku ahayd oo wadada ay la caan baxday wadada Mariina sidaa baa magaca loogu bixiyay oo magacu ugu baxay biidnillaahi alkariim hore baan u soconaynaa waxaad aragteen wadadana marka hore uu qasadkeena ahaa laakiin dhexay ka xirantay xaafadahan kasoo dhex wareegno xaafadahan kusoo soconay waxa aan marayna hadeertaan oo aan ku socono waa iskooska Mariina waxaad arkaysaan inuu jidka dhinacaani liida uu toos u tago wadadan kaleeto ee dhinacan kaleeto naga qabanaysan waa jeerwac buulantii tagaysay kana wadadii tooska ahayd ee weyneed ee caanka ahayd weeyaan oo hore u taqaaniin wadadii waxa waaye bisha cas toos u tagaysa ee isbartiibo iyo istaadio koonis maasha allah tabaaraka raxmaan waxaa aragnaa wadooyinkani inay wadooyin waasac yihiin oo qurux badan sidoo kale waxaan aragnaa wadooyinkan nadaafad ahaan inaynan aad u liidanin caradana waxay ka timaadaa mar walba saan idinkugu celceliyo jidcadayaasha laamiga soo gala baa wada caro ah ama carakaawo ah sidaa darteed waxaa adkaanaysa laamiga inuu liisho bilaa caro ah noqdo maasha allah tabaaraka raxmaan xaafadihii Mariino waaye dhinacan kaleeto naasaleeti ilaa bisha cas uu toos u tagaa migrationkii waa kana awal wixii ahaan jirtay sarta malaayga laakiin hadda migrationka laga dhigay qaybta bari oo dhan migration looga dhigay derbigan dheer ee aan hadda dhan kusoo soconay waa qaybtii lagu xirxiri jiray dadka waalan ama qaybta midig naga qabanay qaybtii ugu dambeysay waa naasaleeti meesha dadka waalan lagu xiri jiray waad aragtaan maasha allah tabaarakallah hadda iskooska aan soo dhaafno waa iskooska bisha cas ee caanka ahaa wadadan tooskeeda waxay tagtaa istaadio koonis gaadiidka booliska meelo badan ay tagtaa waa wadooyinka aadka u muhiimsan magaalada Muqdisho dhexmara nadaafadeeduna maasha allah tabaaraka raxmaan waxaa hadda dhiman hadegdeginina way dhammaan doonaan adduunyada inta hal mar bilaabato maynan dhammaanin laakiin waxa waaye step weeyaan insha allah waan gaari doonaa heerkan heer ka sareeyo dunidoo dhan inay noo soo talxiis tagto meeshaan aad arkaysaa waa istaadio koonis haddana la magac baxay injineer Yariisow allah u naxariisto maasha allah tabaaraka raxmaan waad aragtaan sida uu qurux badan yahay iyo meesha uu ku yaala sida ay central u tahay alxamdulillah wadankan waxa u dhiman waa wax yar dadkii waxbay fahmayaan waa la ilbaxaya indhaha u furmaya biidnillaahi alkariim waxaan rajaynayaa inaan annaga ku raaxaysano quruxdiisa jiilasha naga dambeeyana ay ku degeeyaan oo loo soo dalxiis tago alxamdulillah waxaan u malaynayaa wadadaana waajibkeeda inuu iga dhacay waajib aniga ay saaray waaye alxamdulilaahi calaa nicami waad igu soo dhaweyseen waad ii hiiliseen oo garabkaygaad istaagteen waan idinkaga mahad celinayaa meesha hadeertaan derbigan yar uu ka bilaabanayo waa qaybtii loo oran jiray gaadiidka booliska xilliga hore ee dowladda hadeertaan laftirkeeda waxaa yaala gawaari aad u fara badan gaadiidka booliska kale waa dareemi kartaan booliska iyo ciyaartooyda iyo ani wax walba ku saabsan dhankaas qaybtii gaadiidkooda ahayd xarunta u ahayd weeyaan alxamdulillah waxaan marka malaynayaa muuqaalkani inaad aad ugu raaxaysateen alxamdulillah anigana mar walba ilaah baan ku mahadinayaa laanahu ilaah wuxuu jaanis ii siiyey inaan idiin soo bandhigo muuqaal kaleeto qurux badan ee aan idinku qanciyo laanahu wadadan hadda aan ka leexanayo wadadii gaadiidka booliska kasoo horjeeday ee kaaba amxaara la oran jiray waaye wadada kaaba amxaara la yiraahdaa magac kaleeto kulay uma hayo haddaad adinku magac kaleeto oo aad taqaanaan oo aad caan ku tahay ay jiro oo xilliga hore la oran jiray nala soo wadaaga laakiin aniga hadda sida aan xogteeda ku helay waa in la yiraahdo kaaba amxaaro jidkani waxaan u jeedaa in loo diyaarinayo in laami la saaro laakiin weli aan laami la saarin meeshan waxay ka mid tahay wadadan ama kaaba amxaaraakan meelaha ugu caansan magaalada Muqdisho
waana meelaha ugu maxaa la yirahdaa ugu istiraatiijisan haddii magaalada la fiiriyo. degmo ahaan maanta dhan waxaan ku dhex soconay cabdicasiis, degmada cabdicasiis inta badan tooskaas waa stadio Koniskil hadda aan idin dhahay Engineer Yariso meesha laga gelayo waay, laakiin anaga tooskaan oo soconaynaa. wadadani waa kaaba amxaaro, dhulka aan dhex socono ama aan dhex maraynayni waa degmada cabdicasiis. degmo ahaan cabdicasiis aa la yiraahdaa. waxaan malaynayaa inaad fahanteen ama aad muuqaalka aad ugu raaxaysateen, laanahu dhulkani waa dhulkeeni, dadka ku dhex noolna waa dadkeeni, annagana waxaan nahay jinsiyad Soomaaliyeed. alxamdulillah wax badan oo dhibaato ah waan soo marnay, laakiin lasti baan maraynaa, waan ka gudbaynaa biidnillaahi alkariim. inta yaroo dhiman intaan hadeertaan aan haysanona ilaah baan uga mahadinaynaa, alxamdulillah. meeshaan suuq waxaa jiro la yiraahdo suuqa kaaba amxaara, laano wadadii baa la yiraahdaaba kaaba amxaara soo maaha. marka alxamdulillah muuqaalkani ma sii dheeraanayo, inta noogu ekaanaya oo sidaa baan rajeynaya inuu inta noogu ekaado. waad aragtaan bilicda iyo quruxda wadanka ka muuqda. sidoo kale waxaad aragtaan jawigu magaalka inuu nidaamkiisa iyo amnigiisa iyo dekanaantiisu inay haay tahay, alxamdulillah. duleelada yaryarka ah ee jirane allah baa naga oodaya, oo waxaan nahay dad muslimiin oo ilaahay aaminsan. inta aad muslim tahay, inta aad iimaan leedahay, inta aad salaada ku xirantahay ee aad salaada tukanaysid, ma hoogaysid, ma halaagsamaysid, ma qasaaraysid. ilaah baa kuu ballan qaaday, oo waxa waaye dadka mu'miniinta ah ilaah baa ilaashada, dadka salaadooda ilaahay aqbalana. ilaahay wuxuu yiraahday micnaha qof walba ee muslim ah aan ku qiyaasaynaa inna salaata tanhaa عن الفحشاء والمنكر. salaadu inay reebto faaxishada iyo munkarka. qofka musalliga ah ee tukaday salaadihiisu aqbalka yihiin inuusan fuxshi faaxishnimo la imaanaynin. qofka salaadiisa ay kalab tahana xalaal iyo xaaraan inuusan kala soocaynin. alxamdulillah inta aan muslimiin nahay ilaah baan ka rajeynaynaa inuu sidaa nagu dilo islaamnimo. alxamdulillah ardaydii baa hadda la soo daayay. meeshan waa meelaha cabdicasiis ugu caansan. baddi liido way noo soo carfaysaa, laakiin ma aanan teginin. muuqaalaan idinkaga soo diyaarinaya badda ayadan insha allah biidnillaahi alkariim. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.